haddii aad rabto nolol macaan badan in aad gasho, haddii aad rabto bil-aadan inuu jiro inuu jirin in aad midna aad dareemin, haddii aad rabto in aad ninka qofka wanaagsan inuusan jirin ay niyadaada dareento, wax gadaashaa ka hadlaayo wax agtaada ka hadlaayo dhagahaaga uu saameynaynin, haddii aad rabto taas, haddii aad rabto cadowgaaga in aad ka xorowdo, ama haddii aad rabtid ninkii kaa sareey iyo ninkii kaa liito isku mid inay kuu noqdaan, walaal waxaa ku dadaashaa tasbiixda afkaagay ka bixin 24 saac tasbiixda afkaagay ka bixin yaa wax kaa sareey adduunka inay jireenin, wax kaa nolol wanaagsanna ma jirayso. ilaahaygaa u dhawo tasbiixda baso, tasbiixda waa in ku walaal waxay tahay istaaqbaati joog aan kaa iloobin. istaaqfarta markaa adiga aad bilaabaysid waxaa la rabaa in aad adoo istaaqfarta wado in ahlin waaye ilaa meesha aad gaarsiinayso ma aragtay jaanis si attention-kaaga istaaqfarta la jirto dhinacyadaada sheekada iyo buuq wax haday dhacayaan xataa in aad dhinacaas dhigti u dhigsi lama rabo. istaaqfartaasayda marka aad bilaawdid waxyaabo badan aad kala kulmaysaa, waxyaabo badan oo kaa xayirnaayeen ha kuu furmanaan. dhaqaale ayda ku hayso inta had aan kuu soo sheegay, dhaqaale ayda ku haysa way kuu saxmane habeenkii laa xawla walaa quwwata akhrisanaysaa. videogaas waa kuu soo dhigay. maalinkii markaad joogtid istaaqfartaada wado, istaaqfarta waxyaabo badan ee aydana ay ku sixisaa. istaaqfarta waa eray yar oo afkaaga markuu soo maray aad u fudud, laakiin wax tarkiisana aad u weyn. walwalka way kaa dulqaadaysaa, walbahaarka, cabsida faraha badan, dhaqaale la-ayda, hamiga kugu jiri, iimaan xumida, waxaas dhan way kaa zuulayaan. qof hamigiis aad aragtid dhinaciisa fiirnaayo maanta wax ma hay allah dadku waxay haystaan aad is iimaankaa ku yar. istaaqfartaada badso, iimaankaaga aad ayuu kugu degayaa, hamigaaga aad ayuu u saxmanayaa. maanta dhaqaale haddii haysan isku kaa mid ay kuu noqonayaan istaaqfarta markaa wadid. ruuxii dhaqaalaha haystay adiga ayaa ka jawi fiicanba, adaa ka jawi macaan ku jiro ninkaas qofka dhaqaalaha haysta. laakiin qofka cibaado wato mar walba istaaqfarta cibaadada wato jawigiis aad jawi degan ayaa ku jirtaa. ma ciloonayso, bulsho uma baahanid. ruuxa waxaa waaye adiga u baahanaysa bis waxaa waaye ruux ma aragtay oo cibaado sidaada camal leh oo cibaadaysanayo waa askeenaysaa, laakiin munaafiq dhan isma keenaysiin. ilaahay ayaa kaa reebaayo. ilaahu qaatimada noo soobi anaga intii muslim ah. istaaqfarta wax badan ayaa aad ka arkaysa, laakiin fadlan waxaa samaysaa istaaqfarka markaad akhrisanaysid sheekaha dhexgelinin, alloon inaad noqotidaa fiican. jawigaaga keligaaga inaad iskaga degnaad, inaad niyadaada walaala gabdho walaala ayaa i soo waceen ee igu dhaheen cibaadada waa sameynaa, salaadaha waqtigooda waan tukanaa, sunooyinkii markaad duceysanayna sunooyinkii la tukanayna waan tukanaa. walaala weli jaamkaayna ma dhammaanaye, koorka wuuna jijabayaa, daal aan dhammaanayn. haddii aan wax qabto iyo haddii aan wax qabinba laba gooraba daal waa dareemayaa. maxaa sababay? walaal haddii lamid aad tahay istaag dhagayso. walaalaha videogan hadduu kusoo gaaro fadlan, walaal videogan hadduu kusoo gaaro fadlan share garee si walaalo badan ayagan dhibkan u qabo u gaaro ee ayagana ugu faa'iidaystaan cilada haysata ay u istaajiyaan ciladaasi. fadlan ii soo dhawow, dhegtaadana ii dhiibo. walaal cibaado waa samaysay, sunnooyinka markaad ducada akhrisanaysan waa dukataa.
idhigeyso waa marka walaal cilada koowaad horta waxaa keentaa xanka waaye haddii adiga wax xamanayso ama haddii xan lagu keenayo waxay la mid tahay kan kuu keeno aad dhegaysanaysa iyo kan aad ku hadlaysidba waa isku mid waaye kaas dembigaas waa isla qaadanaysiin horta xanka inuu dembi yahay saas muu ogtahay xankaas dembi weyn ah kaasoo gaarayo dembigaas weyn kaasoo gaari waxaabay culeysaad fara badan aa kugu imaanayo waxay ku keenaysaa in aad walwalsto waxay ku keenaysaa in walbahaar uu ku galo waxay ku keenaysaa in cabsi fara badan ay ku gasho waxay ku keenaysaa in madax xanuun uu ku qabto waxay ku keenaysaa in aad daal sariirta ka kiciweyso waana cibaadaysanaysaa maxaa ihel aan leedahay laakiin ciladaas weli ma joojinin taas jooji ada arki doono waayo xanka walaal wuxuu leeyahay culeysaad fara badan waa anaga waa sahlanaa laakiin culeysaad fara badan ayuu leeyahay xankaasayta habadsan xanka iska dhaaf walaal waayo ducadaada wanaag waxaad doonaysaa inuu ilaahay qulubta uu kuu nuuriyo inuu ilaahay iimaanku kuu sigo inuu ilaahay aakhiri adduun liibaanta uu ku siiyo fadlan jooji xankaa ku leeyahay midda xigta waxaa jirta haddii gaarkaas aad dhegta u taagi jirtay iska jooji cibaadada markaa ku jirtidna ha hadlin adoo cibaado ku jir qofku la hadash cibaadada way buraysaa Soomaali badan ani waan isku arkay inaa markaa cibaadaysanayo dad ay ku sheekeynayaan laakiin sheekadooda lama dhaxgalo waa la joojiyaa cibaadadaada iska wadanaysa niidaada sheekada xataa lama raacsiyo laakiin niidaada waa cibaadadaada wadanaysa qofka sidaas ka tagay walaal